بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. وحرنا halkaan inaan ka soo jeediyo shir jaraa'id oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyay dalka. Sidaad la wada socotaanba muddaxileedkii hay'adaha dastuuriga dalka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu dhamaaday 14 Abriil 2026. kan madaxweynuhuna waxa uu hartay 25 maalmood oo kaliya isla markaana waa markii koobaad oo jamhuuriyadda saddexaad tan iyo 2000 hay'adihii dastuuriga ee dalka loo doortay oo madaxweynaha qaybna u dhamaaday inta kalena ay maalmo yar oo kaliya ka hareen isla markaana hay'adaha la doortay aysan ogeynba inuu waqtigooda dhamaaday isla markaana aan la garanayn marxaladda iyada ah sidii lagu maareyn lahaa runtii halkii laga sugayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wajahidda qatarta dul hoganaysa jiritaanka dowladnimada Soomaaliya in uu ku mashquulsan yahay caburin agajugleyn xarig iyo boob hantidii dhulka iyo danta guud ee shacabka Soomaaliyeed dan yarta ay deganaan iyo kuwa milkiyadooda ay hadba si xooga looga barakicinayo arrinka asiga ah waan cambaaraynaynaa waxaan halkaan cambaarayn runtii on aad ugu xunun cambaaraynaynaa dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada u badan ee saldhigyada degmooyinka magaalada Muqdisho ku afduuban qofka haddii dambi uu galo dalka shuruuc iyo dastuur buu leeyahay waxaa jirta hanaan iyo qaab loo maray waxa dhacay ee dhalinyarada qaarkood xisbigan ka tirsan yihiin oo uu ka mid yahay Sharma Arke Maxamed Axmed iyo Najiib iyo Saadiyo sida loo xiray waa hanaan afduub ah oo fawda ah oo sharciyad iyo maxaan ku raahday qaanuun intaba aan sal ku lahayn isla markaana baalmarsan qaanuunka dawliga iyo xuquuqda aadanaha intaba waxaan rabnaa si degdeg ah dhalinyarada iyo boqolaalka kale qof ee saldhigyada ku afduuban xorriyadooda in dib loo siiyo waxaa kaloo cambaaraynaynaa barakicinta xarka goosatay ee waayadan dambe lagu darayba dhulkii danta guud oo hanaanka sharci darrada loo xaraashayay ee kuwa ganacsatada ah ee dhigicabeeda ah laga xaraashayay ayaguna dadka ay ka sii barakicinayeen in lagu daray dhul milkiyad dadka Soomaaliyeed u leeyihiin oo la leeyahay inta bixi ama maxaan ku raahdaa dhulkaasi ka tarbiilan marinaynaa dadaan u cabiraynaa wax hore u dhacay meel ay ka dhacdeen ma jirto hore u dhacayna ma waxaan rabnaa marka dawladdu waqtigeedu gawaabsiga ee madaxweyne Sheekh Maxamuud inuu ka waantoobo arrimaha noocaas inta kadib waxaan halkaan fariin ugu dirayaa ciidamada ammaanka waxaan leenahay waxaad ku dhisan tihiin shuruuc iyo qawaaniin iyo dastuur dalka uu leeyahay waajibaadkiina halkaas uu ku cadiyay madaxweyne waqtigiisu u dhamaaday isla markaana dariiqii sharciga ka leexday in amar qaldan aad qaadataan idin kama saaraysa beritoole adduunkan waa la kula xisaabtami doonaa aakhiran waa la kula xisaabtami doonaa waxaa la idinka rabaa amarada qaldan ee sharciga baalmarsan inaad diidaan kana hortimaadaan waxaad ogsoon tihiin saraakiil hore dambiye qaldan amar qaldan intay u qaadatay dambiye geysatay oo dalka dibadiisa iyo meel kastaba dacwo ay kaga furnayd loogana furay waliin la daba taagay waxaan rabnaa markaan idiin sheego madaxweynuhu waqtigiisu waa dhamaaday waxa maanta looga fadhiyana waxa weeyaan doorasho heshiis lagu yahay inuu miiska soo saaraa inta aan la gaarin 15 May 15 May haddii la gaarana waxa weeyaan madaxweyne xasan labada uu dadka kala doorsiinaya laba mid la qaata aan lahayn waa maxay tahay waan iska joogayaa oo kursigan waan jeclaaday dhulka iyo dadkan boobayaa waa ku amar taaglaynayaa ama dalka burburayo dalkana ma burburayo kursigana siima joogi doono insha Allah taala inta aysan gaarin gacan ka hadalna madaxweyne waxaan ku leenahay habdhaqanka siyaasadda Soomaaliya waa naga taqaan waxaad shalay diidaneed oo la qaylinaysay wax ka fool xunaad samaysay cid qaadanaysana ma jirto intay goor tahay oo wali tala gacantaada ku dambayso talada miiska soo dhig in doorashada laga wada hadalna ogolow waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan ayagana fariin u diro shacabow
dastuurka kumeel gaarka Soomaaliya wuxuu tilmaamayaa awoodda dowladnimadu inay ka bilaabato shacabka kuna dhamaato. madaxweynihii aan dooranay ee rabitaankeena ku yimid shalay dariiqii saxda ah inuu ka weecday oo ummadda Soomaaliyeed u kala geeyay ayadoo dunida waliba wixii la dhihi jiray hanaankii dawliga ama world orderkii uu lumay maanta Soomaalidii halkuu isu keeni lahaa oo waliba saameyn weyn ay nagu leedahay juqraafi siyaasadeedka iyo saraaca loogu jira dhulka istiraatiijiga halkuu Soomaali isu keeni lahaa maanta asigii uu reerayn iyo qoysas iyo meel hoose ka sheekaynay ummadda uu kala geeyay waqtigiisina 25 maalmood oo kaliya maanta ka harsanta oo in kugu sii daray xaquuqdii iyo xaquuqaadkii dastuuriga ahaa inuu idin doosiyo qof alla qofkii hadidiisa la qaatay xataa sheegay hanaan sharci aan loo soo maraynin saldhigyada degmooyinka uu ku afduubay waxaan rabaa marka awoodda dastuurka idin siiyay inaad muujisaan oo awooddiina isu keentaan oo aad difaacataan xaquuqdiina iyo xasaanadiina iyo sharafkiina iyo karaamadiina iyo dowladnimadiina iyo amnigiinaba haddaad sugtaan ninka dhahaya ama ana iska joogaya ama maxaan ku dalka burburayo dalka meel qaldan u wadaa gacmaha lagama laaban doono waxaan rabnaa marka inaad isu soo baxdaan awooddiina muujisaan xaquuqdii iyo xaqiina aad difaacataan inta kadib madaxweynuhu fariin yar ayaan u rabayaa madaxweyne habdhaqan siyaasadda Soomaaliya wana taqaana mar kale wali 25 maalmood oo aad leedahay يعني أودي مدحوين ما أدها يستطيع أنت هذا كنجرت شن إلا واتنكاس مع الموت حدا هذا كفى إيديسن خربتان كجرعان إيكو مدح مرينا هذا كسر لابن وحد جاري دونتا مالين أيسن طلق عنك بوجرين مالين أو حوا أديك اللي جاوا دينين وح يأود أنا ضل كان كوه سكرت أدوم ليسن وحسيس عندنا معه آديات بعد ما سنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.